kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada qaybta maqalka ee ha noolaato oo ku soo qaadan doono waxyaabo kala duwan oo dhinacyo badan taaban doona waxa naga qayb qaadan doona oo halkan ku sugan qayb kamid ah xubnaha ha noolaato أنا إلى قبيلي وكان انقلا وذاقنا قرن كيدي جبينو القلاح مدايو ولقلا ما جوتو ورما ودا مرينا ugu horeynba waxaa garabkayga midig fadhiya Cismaan Abukar oo ah gudoomiyaha xisbiga ha noolaato waxaa ku xiga xogayaha siyaasadda Cabdiwali Garaad iyo waliba gudoomiyaha ku xigeenka علي شريف ugu horeynba waxaan jeclaan lahaa inaan su'aashayda weydiiyo gudoomiyaha Cismaan Abukar Cismaan waxa wax nooga sheegtaa marka ugu horeysa federaalka iyo waxa uu yahay noocyada u kala qaybsamo waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku xun yahay xalse ma u yahay bay kula tahay Soomaaliya Cismaan bismillaahir rahmaanir rahiim nidaamkan federaalku wuxuu lagu sheegaa siyaabo badan baa lagu sheegaa asalkiisii inuu kasoo jeedo iyo meelo kala duwan qolo waxay yidhahdaan waa Latin Arabic oo fiyuuda iyo realism buu ka yimi qolo waxay yidhahdaan asalkiisu waa wuxuu ka yimi Bible-ku ka yimi oo waa sida ay kaniisadu u shaqeeyaan marka laakiin asalada oo dhan laga tago waxa uu isugu soo ururayaa qaybinta awoodda ee loo qaybiyo awood dhexe iyo gobollo ama haddii afka qalaad sida lagu yidhahdo sovereignty is constitutionally divided between central government and constituent political units like states or provinces marka waa laba qaybood waa dowladda dhexe iyo gobolladii waxa kaloo lagu yidhahdaa awood wadaag iyadoo awooddii la wadaagayo sharing power waxaa jira noocyo kala duwan oo federaal ah noocyada kala duwan ee federaalka waxaa ugu muhiimsan laba nooca la yidhaahdo confederalism iyo nooca la yidhaahdo dual federalism confederalismku waa federaalku markuu faraha ka baxo federaalkii oo federaal sii noqday oo dowladdii dhexe awooddii la yareeyey gobolladiina awooddoodii la xoojiyey oo dowladdii dhexe ay iska tahay maqaarsaar dowladihii ama gobolladiina ay yihiin kuwa iyagu talada haya waa confederalism oo dalal badan ayaa sidaa u shaqeeya tan kale ee duwalka waa ka inta badan adduunyadu u badan yihiin dual federalismku waa awooddii oo loo qaybiyey dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii waana inta badan federaalka adduunku siduu ku shaqeeya awood la egyihiin miya awoodihii oo loo kala qaybiyey si dastuuri ah waxaa ka mid a markaa dalalka noocaasa hindiya jarmalka maraykanka canada iyadu waa confederalism marka su-aasha loo gudbayaa markaa waxa weeye federaalku muxuu waxtar leeyahay muxuuse dhibaato leeyahay markaan soo fahnay asalkiisii markaan soo fahnay dowladaha isticmaala markaan soo fahnay noocyadiisa oo ah laba nooc awooddii oo qaybsan iyo awooddii oo gobolladu leeyihiin labadaa qaybood markaynu soo fahnay muxuu faa'iido leeyahay muxuu khasaare leeyahay faa'iidadiisa waxaa lagu sheegaa in dowladda dhexe halkii ay ka noqon lahayd dowlad dictatora oo dadkao dhan xakamaysa oo iyada xoog dalka ku haysa in awoodda lala wadaago si looga hortago dictatoriyad waa faa'iidada keliya ay sheegaan laakiin xagga dhibaatada marka la eego dhibaatooyinka federaalku aad iyo aad bay u badan yihiin waddamadii isticmaalayna hadda way ku soo badanayaan dhibaatada koowaad waxaa ka mid a tay lagaga cabanayey federaalka dowladda dhexe lagaga cabanayay ay ahayd dowladda dhexe awooddeedaa weynaanaysa dabadeedna dictatoriyad bay noqonaysaa waxaa soo baxday isteedyadii ama gobolladii oo gobolkii hadduu doono dictatoriyadii ka bilaabmayso isaga laftiisii dadkiisii oo ka yar dhaqaalihiisii oo ka yar awooddiisii oo ka yar baa dictatoriyadii ka soo baxaysaa intii ta dhexe lagaga cabanayay buu gobolka yeelanaya ta labaad ee cajiibka iyaduna waxa weeye waxa mar walba khilaaf ka dhex taagnaanaya nidaamkii dalka cashuurii baa la isku qabsanayaa ma dowladda dhexa qaadaysa ma dowladda hoose qaadaysa ma dowladda gobolka qaadaysa waa nidaam dhan oo isku maran xaggii cashuuraha
oo dhaqaalihii dalkan la kala hagaajinba karayn si walba oo la yeelo waxaan la kala hagaajin karayn khayraadkii dalka waxa iyadu dhibaatadu ka imanaysaa dadkii haddii gobol dalku federaal laga dhigo oo la yidhaahdo gobollada noocaasa ay wanaagsanaadaan oo iyagu intay ismaamulaan maamul fiican yeeshaan oo kor u kacaan maamulkii kale ee federaalkuna ila dowladda dhexe wixii dadkii u qaybin maysee uu la hadho maamulkii waxaa suurtagala dadkii intay ka soo guuraan jubbooyinkii inay ba iyo boqol soo guuraan oo laga soo dhammaado gobolladii dabadeedna mushkilad bay noqonaysaa ba iyo boqol waxaa soo fuulaya culays ummadeed oo adduunyo oo dowladda dhexe waxay ku cuntahay marka iyadu wax maamulayso iyadaa jaan goynaysa waxaa ka sii daran dhibaatooyinka kale noocaasa maamulka ee federaalku leeyahay warqaddii yarayd ee ka soo baxday xafiiska madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inay qaadato muddo dheer in la fuliyo oo ilaa heer tuulo gaadho xafiiskii ra-iisul wasaaraha kasii soo baxday tii wasiirka kasoo baxday maamul ahaan bay waxaa laysku marmaya iyadana sidii cashuuraha laysugu marmay ayaa maamul ahaanna aan shaqadiiba kala soconaynin waxaa kaloo lagu sheegaa dhibaatada gobolku maadaama uu yaryahay haddii awood badan la siiyo gobolkii in isku reera baa degan in isku dada baa degan in istaqaan baa degan waxaa u fudud in taladii dalka ay dad dana leh dadka la yidhahdo interest groupku inay qaranka dhex galaan iyo inay gobol yar dhex galaan waxaa u fudud inay gobol yar dhex galaan marka waa dhibaatooyin caalami ah oo jira kuwa innaga markaa inoo gaarayna innaga inoo sii gaar noqonayaan waxaa la yidhahdaa 3 nooc buu federaalku ku samaysmi karaa dadkaas inay kala diin yihiin iyo inay kalaaf yihiin iyo in dalkoodu sida Indonesia oo kale ay bada kala qariyeen oo ay isu gudbi kari waayeen dadka kala diinta waxaa ka mid ah waa badan yihiin wadamada diiniyan federaalka u noqday wadamada u noqday language Belgium baa ka mid ah waa kala luqad bay federaal u tahay weynaan India oo kale way isgaari waayeen marka waa in laga dhigo kala dhaqan weeye kala diin weeye waa weyn tahay dhaqaale ahaan oo kale hadduu dalkii dhaqaalihiisa aad u farabato sida Mareykanka laakiin waxaa jira wax la yidhahdo fake federalism ama federaal jahwareera oo khalada oo aan sax ahayn federaalka Ethiopia oo kale dowladda dhexe wax walba maamusha waxayna ku sheegtaa federaal wax federaal ka jiraan ma jiraan askariga iyada magacawda ka madaxweynaha gobolka lagu sheego haduu doono xafiiska prime ministerka xira imika kililka shanaad ee Soomaalidu degto nin madaxweynaha oo aan soo marin oo aan la xidhin ma jiro iyada keenta iyada la xidha marka ma aha federaal waa fake waxa aan yani wax khalad ah oo jira weey haddaan soo gudubno ugu dambeyn Soomaaliya ma anfacaya inkastoo walaalada iga dambeyn doonaan waxay adag tahay xagga dhaqaalaha hadii laga eego iyo xagga dadweynaha hadii laga eego iyo xagga dalka hadii laga eego iyo xagga dhinaca walba waxaad moodaa wax umada lagu qaybiyaa inaanay jirin federaal laga dhigo way asmaana ku soo noqon doonaa أنا إلى قبيلي وكان انقلا وذاقنا